السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka wada hadlaynaa oo raba hadda inaan kala hadlo qofka bini'aadmiga ah inuu shaqaysto. qofka bini'aadmiga anigu noloshaydii waqti fara badan waan shaqaynay. maxay ahayd shaqada waa very important. shaqada dadku shaqay ugu yaraan ana xorriyad baan ugu yaraa. ana haddaan shaqaysan waan isla hadlaa waan isku buuqa haddaan hal maalin ma shaqo la'aan noqdo. waa inaan naftayda markasta aan biisi noqdo oo aan wax un biisi ku ahoon wax u qabanayo. maxay ahayd qofku shaqadu waa sharaf. shaqo inaad shaqaysato uma baahnid inaad jaamacada ka soo baxdo. qof walba ilaahay wax buu jeclaysiiyey. qof waliba meel buu ku fiican yahay. qofku meeshuu ku fiican yahay in loo diraawan inuu aado ayaa isaga isagu baa wanaagsan. waxaa jira shaqo lacag badan ku siinaysa oo laakiin aadan habi ku ahayn oodan jeclayn. waxaa jirta shaqo lacag yar ku siinaysa laakiin nafsadaadu habi ku tahay. muhiim waxa meesha waxa aad qabanayso haddaad jeceshahay waqti badan baad wadi kartaa. haddii aadan jeclayna maxay ahayd ma wadi kartid si kastoo lacagta u badan tahay. marka waxaana waxa fiican waxa aad waqti badan aad jecesho aad habi ku tahay oo wadato because very important. subaxii markaad soo toosto haddana tiimaan u socdaa haddaad lacagtaas ay tahay waxa ku wadaayo shaqada habi kuma noqonaysa. hana wax yarna ha ku qancin ee wax weyn ku fakar adduunka inaad arkaysid oo dhan baa adiga ku bannaan. maxay ahayd shaqayso inaad qof u shaqaysana waxaa ka fiican inaad adigu shaqaysato ama business la timida ama technology-gan maanta jirto waxyaabo kale la timida ama maxay ahayd adigu wax isku keensataya adigu haddii aad meel ku gado qudaar waxaa tahay small business owner baa tahay. qof business yar haysta baa tahay haddaad yaanyo iyo qudaar meel ku gado. haddii Nairobi waxaan ku arkay gabar dabakaayo yar ka furatay suuqa waxay aad daaweynka Komba. haddana markaan Nairobi ku noqday 2016 waan soo arkay meel dabakaayo kareysatay qudaarta Soomaalida dhan oo Saudi baa ka gadatay aniga ka gadanayay. maalinta $150 bay ka sameeyaa igu tiri adayl iyo dad wax uga baahan tahay 15 kun oo Kenya ka sameeysa. qudaartaas ay soo qaadaa dadka Soomaaliyeed oo dhan bay ka gadaa. fruitska vegetable-ka $150 baan kas dadka jooga area-da degan oo dhan waa dad lacag la Saudi. maxay ahayd xaafadaha la yiraahdo meesha la yiraahdo awaas area-daas ay degan suuqa Magoya agtiis. marka waxa weeyaan waxaan arkay waxa ka igu yaabanayd gabadh ayaa tinaar suuqa Islii wadada dhinaceeda bas jaamka masiga street ma waxay 12 ka maaqan adigu suuqa Islii wadooyinkaas wada kamida ayay tinaar baaldi intay tinaar ku ridatay oo diyaarsatay bahal foosta gobolo weyn ayay dhigatay gurigeeda cajiinkeeda ay soo riiqataa waxay soo diyaarsataa ku soo habaysataa baaldi muufa ay soo dhigataa. maanta dhan muufadaas ay dubaysaa wadada bartankeeda anaa ka soo gatay. wadada bartankeeda muufadaas ay dubaysaa waa ka order garaysanaysaa dhag waa ku diyaarinaysaa tinaarkay kugu dhajinaysaa bahashiyo kulul oo saas u carfayso ee kaaga soo saaraysaa. ilmaheeda saas ay fikradan uga baxsataa kuna biilataa reerkeed dhan saas ay ku dabarataa. baaldi muufa iyo hal tinaar oo foosta gobolo ku jira waa business owner customer bay leedahay. dad baa ku xisaabtama dad baa ku tashta. marka waxa weeyaan businessku yaryaraan malaha. shaqadu ceeb ma ahan waxaa ceeb ah shaxaadka now qofka aad tahay. waxaan kaloo idin ogahay businesska markaad meel ka bilowdo waad sii soconaysaa waad ku sii ilbaxaysaa dad baad sii baranaysaa saas inta laama badan aad u sii samaysanaysaa iyo dad badan oo qof la yaqaanaad noqonaysaa. asuunaas lagu arko dadku inaad wax qaban karto oo diyaar u tahay inaad wax qabato. waa maxay ahayd waa business hadaad dhex gasho waa saad u dhex gashay laakiin waa inaad also diyaar u tahay qasaare waa inaad kufto. marmar baad wax bilaabaysaa kuma soconayaan aad ku qasaaraysaa. marmar baad wax bilaabaysaa waa inaad horta dhacdo qasaarto waxaad ku qasaarto qasaaraha waxbaa laga bartaa. qof aan qasaarin uma faa'iido.
qof aan qasaarino ma faa'iido dadka business kale meeqa jeer Donald Trump bangi rabsi galo oo business qasaaro faa'il gareey maanta toolna waa kaasa intaas jeer bangi rabsi faa'il gareey maanta dabaqada ugu dhaadheer Mareykanka asagaale madaxweynena waa kay marka waxa weeyaan Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu diinta fidinay inteeba la cayri inteeba la laay inteeba la barfarkooda Itoobiya ka dhacaan asxaabta asaguna Madiina ka dhacay carabka waa qasaar ma jooji dadkii sibaa la laay ma jooji keep going alayhi salaatu wasalaam u socday wa nabiyuna Maxamed ma sha Allah ajab iyo carab iyo inta ka dhaxleen علي بيستان كوطن كان بدن بهذا الصوب مسلمتي دين الإسلام كمان تميلين قرن ما شرت قفن ما قد يسجرنين ما شرت صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد هذا ما أنت دي لا مركز تتكلم لا يلقى تشوشي ما قد يسمع أنت التوالي نبي محمد دين الإسلام قال كام سوقرتن وحكست قبنا يسو example نبي محمد أنتو صوت شوي كفرس مركز واحد وين شبكة وين هذا قلعت وحبا لقى برته قصارها وين هذا قلعت واتكله والو نياد حمايني نهاده waxba kama helaysada maxaa moofa iyo baqti iyo waxaan kugu wata na wax kala raadso bismillaahir rahmaanir rahiim qof aan fikiraynin una asaguba balaan iyo maskaxaysan ya adiga intu qiimadan niyada inuu ka jabiyo rabo wax ku sheegay bismillaah naayadana ceebaynin orada wax ka fiican si in hebel baa tahay kuma biilay carruurtana kuma biilay marka waxa weeyaan haloo socdo horay shaqada waa sharaf baryaduna waa ceeb halka laga socdo markaad wax kasto oo bilaabaysid ha yaraadaan ha weynaadaan waxaad ogaataa qasaaro inuu imaanayo ku tasho waxaad ogtood ku tashataa kuma dilaan qasaaro haduu yimaadana ha baqin hortaada la soo wada qasaar waa laga baxay waad ka soconaysaa haddana kasi soco kan haduu jabjabo burburo kan kale kasi fiir adduunka wax weyn inaad gaarto ku fikir markaad ilmuhu markuu socod baranayo meeqa jeer ku faaya businessku waa sidaas had wax kasto oo ku hamidaa waa sidaas inaad maxay ahaytoy aniga hadda YouTube ka bilaabay maxay ahaytoy dad badan baa dhahayeen dad ku I'm lucky aad baan nasiibnay positive badan baan helaa laakiin qof baa wuxuu ku leeyahay balaayadaadii waxa sheegaysid meel faris ma garat waa ku discourage gareynaya maxay ahaytoy message baan qoray waxaan ku raadaa thank you very much ما فهمت waayo qofku taladiisa isaga opinionkiisu ka hadlo laakiin anigu taladan go'aansaday go'aan la'aan kuma imaanin halkan taladan go'aansaday inaan meel ka gaariyo message-kayga farriintayda inaan dadkayga ummadayda Soomaaliyeed aan la share gareeyo waxa weeyaan aniga go'aantay adiguna sidoo kale shaqaysta ogolaada inaad kuftiin hadii qof inaad u shaqayso inaad farqabsi ku yeeshatay ka soo shaqay hadii ay tahay inaad maxay ahaytoy meel yar oo aadan jeclayn ka bilowdo meelaad cishad ku gaaraysaa ay ka soo keep going waad gaaraysaa jabka waxba laga soo bartaa waa soo jabay konton sano waa soo jabay maanta itoole hal mar baan sidii ilmo yar toos u socday oo yaa dib dambe gadaal ii celinayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahina waa iqraqtay wax kasta oo qabanaysiin ilaahu noo barakeeyo ilaahu haday qeyrka noo tahay na waafajidha mar walbana xasuusta wixii aan ka halaaba ilaahi qeyrkuma ahin wax ka qeyr badan buu ku ogyahay waxaan noloshayda markasta idin la sheer gareynaya iyo ideyadayda waa cimriga aan jiro inaad wixii aan soo maray idinkuna aad u aragtaan inay normal tahay oo hadaad qasaarto hadii cunug ka dhinto hadii maxay ahaytoy reerku ka burburo wax walba inay lagaaga soo horeeyay normal tahay aadna ka kici karto shaqaysta shaqa male intaad caruurtaada gaajo guriga kula hordilayd ama naftaada gaajo guriga u hordilayd yaa risaq yaa fitaxde hadaa shaahinaad karin karto kari hadaad yaanya gadi karto gad hadaad nanaci xanjameel la fariisan karto gad hadaad qof shaqayn karto waxna aruurso waxaad aruursatid marka adigu isku day your own business inaad yeelato so very important qof hadaad u shaqayso lagama taajiro laakiin hadaad adigu shaqaysato waad ka taajiraysaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh